waxaa xusid mudan in taliye xuseen faarax aadan markii uu tagay degmada Ceerigaabo uu ka badbaaday shirqool loo maleegay kaas oo loogu doonayay in lagu xidho isaga iyo ciidamadiisaba si sharci darro ah, balse arrintaa uu ku wajahay feejignaan dheeraada isaga oo kama dambaystiina kaga soo baxay degmada Ceerigaabo awood ciidan kadib markuu dhagaha ka furaystay amaradii taliyayaasha ciidanka Somaliland. dadweynihii ku soo dhaweeyay taliye xuseen dheere degmada Xingarool waxaa ka dhex muuqanayay taliyaha booliska gobolka Sanaag ee maamulka Puntland Axmed Siciid Gigaroor oo si diiran ay isu marxabeeyeen taliyaha guutada 39aad ee Somaliland Xuseen Dheere, taas oo muujinaysa kala duwanaanshaha maamul inaanay marnaba saameyn ku yeelan doonin walaaltinimada ay isu qabaan iyo qalbi furnaanta mas'uuliyiinta deegaanka.